marka application kan waa very fantastic maalinteeda 10 daqiiqo siiso wax badan buu kugu soo kordhin doonaa waan arki kartaa xataa af Soomaaliga kugu sharaxaya maanta waxaan soo helay application aad u wanaagsan oo markaa ka caawin doona inaad luqadda Englishka si fiican u barato marka qofku uu doonayo inuu luqadda Englishka barto mid kamid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee qofka laga doonayo inuu si fiican iskaga dhiso waxa kamid ah waxa loo yaqaan vocabulary-ga qofka markasta uu yaqaano kelmado badan oo luqadda Englishka ah waa markasta u fududaato marka inuu fahmi karayo marka luqadda Englishka hadii la hadlayo ama hadii uu wax akhrisanayo ama xitaa marka wax qorayso so the more vocabulary aad taqaano the more marka luqadaada ay rich noqonayso marka aad si fiican ugu hadli karto una fahmi karto so muuqaalkan waxaan doonayaa marka application aad u wanaagsan oo anigu maalmahan baan tijaabinayay kaasoo marka aad perfect ugu ah qofka inuu iska dhiso kelmadaha vocabulary-ga si marka luqadiisa ay u noqoto mid marka hodan ah oo marka aanad ku mararka qaar kelmadaha inuu kugu istaagin marka hadlayso ama marka lagu hadlayo marka inaad si fiican u fahmi karto kelmad kasta oo marka lagu yiraahdo marka soo dhawaada waa muuqaal aad u xiiso badan muuqaalka noo sii share gareeya soo kala ku cusubta platformskeena ku soo bir ee isla eegno marka application kan idin la wadaaga waa kana waxa la yiraahdaa word up so word up waxa weeye application fiican oo marka dadka ka dhisa kelmadaha ama vocabulary-ga luqadda Englishka so application-ka marka soo gasho oo is diiwaan geliso halkan baa imaan doonta halkan marka imaado wuxuu ku sameynayaa marka lesson plan aad isticmaali karto waxyaaba application-kan ku fiican kamid ah qofka in la daba galo in marka abaalmarin la siiyo marka sidoo kalena marka si tartiib ah marka aad horumar u sii sameyso haddii tan office basics buu ku bilaabanayaa family baa ku sii xiga waxa ku sii xiga moving around traveling friends everyday needs marka saas baa u wadaysaa waa 10 aad u badan marka qaabka loo sameeyo waxa weeye qaab qofkana marka si tartiib wax u baraya sidoo kalena marka ee fududa inaad fahamto isticmaalkiisa waxyaabaha kale uu leeyahay waxa kamid ah in marka lagu xisaabiyo wax kasto aad qabato like for example imika 10 walba waxa ku qoran 0 of completed like 0 of 10 completed 0 of 9 completed marka wax kale ma taa waxa la doonayaa qofka marka in sidaa uu isku dabagalo markay hadal idinku daalin aan tijaabino so application kan si aad u isticmaasho waxaan soo gelin doonaa description-ga iOS-kiisa iyo Android-ka haddii aad Facebook ka daawanayso comment-iyo koowaad ka eeg so marka soo gasho sidoo kale dad ka daawanayso TikTok meelahan waxa isku dayana YouTube-keena raadiso magacayga ku qor kadib waa heli doontaa description-ka sababtoo TikTok ma soo gelin karay linkeeda marka kelmadda haddii aad furto waxa imaan doontaa halkan so hadda kelmaddii waxaan ku jirnaa greetings-ka ama salaanta qaybta salaanta ku jirnaa kelmadihii lagu baranayay waxyaabaha kala cajiibka application-kan leeyahay doonay marka surprise in aan kaga dhigo waxa kamid ah in application-kan aad ku xiran karto your primary language so primary language-ka ama luqadda u dhalata ku xiranaysa kadib marka kelmadaha fahmi weydo halkan baa lagu sharaxay for example imika af Soomaali baan ku xirtay markastoo aan halka imaado kelmadda ama sentence-ka marka la isoo qoro xaqiisa hoos waxa lagu qorayaa marka macnaheedu oo af Soomaali haddii luqad kale isticmaalayso waad ku qoran kartaa primary language-ka si marka lagu tarjumo marka hadda kelmadda koowaad ee maanta aad baranaysid wuxuu noqonayaa ama lesson 1 of 10 greeting-kan 10 cashar baa ku jirta casharka koowaad waxa ku baranaysa how are you marka haddii start imika aan dhaho how are you laftirkeeda waxay noqonaysaa marka how are you marka qaab kala duwan baa lagu bari doonaa hadeertan kan u horeeya la ibaraya imika waxa weeye hadalka laga imika daan samaacadan taabto how are you waa maqli kartaa marka kelmadii lagu dhawaaqayo taasna waxay keenaysaa inaad aqrin karto sidoo kalena maqli karto markaas aad u fahamto haddii continue aan dhaho haddana mar labaad haddana intaan waxaan ku dhex jirnaa 10 cashar ee greetings-ka dhexdiisa waxaan kaga sii jirnaa how are you-da so how are you laftirkeeda waxay sii yeelanaysaa marka 5 exercise oo lagu siinayo ta koowaad waxa lagu maqalsiinayaa codka talabaad waxa lagu leeyahay how are you da lagu soo qor ama kelmadda lagu barayo waxa lagu leeyahay ka dooro halkan af Soomaali maxay ku noqonaysaa marka tasaxda waxay noqon doontaa sidee tahay oo siiya yaa ku guulaysan continue dhig doona marka kaliya ma baranaysid kelmaddaas ama sentence-ka laakiin waxa lagu barayaa marka step by step inaad fahamto kelmadahan waxa ay yihiin marka waa application cajiib oo fantastic waana free intiisa badan qayb lacag uu leeyahay laakiin inta free uu ku filan tahay haddana waxaan ku jirnaa imika qaybtii saddexaad 5 qayb bay u kala baxaysaa halkii kelmadba marka waxa lagu leeyahay qor baa lagu leeyahay marka how are you sida u kala horeeyaan baa u kala taabanaysaa continue adii doonta haddana waxa lagu leeyahay markaan halkan waxa lagu leeyahay marka pronunciation-kaaga baa la tijaabinaya marka microphone-ka heer baa taabanaysaa kadibna waad ku dhawaaqaysaa how are you how are you
marka waxaan u maleynayaa recordingka aan sameynaya microphone-ka inuu interference ku sameynayo laga yaabaa ma ii maqlayso marka skip bas ka dhigi kartaa wixii aanad fahmin haddana waxaa lagu leeyahay hadda sidee tahay baa lagu soo qoray waxaa lagu leeyahay af English ahaan halkan ku qor marka waxaa ku qori doontaa on how are you kadibna check baa dhihi doontaa kadib calaan su'aalkii waan ka tagnay laakiin wuu noo ogolaaday marka application-kan waa very fantastic maalinteeda 10 daqiiqo siiso wax badan buu kuusoo kordhin doonaa waana arki kartaa xataa af Soomaali inuu kugu sharaxayaa Englishka qayb buu ka yahay imtixaan buu ka qaadayaa marka hadda kalamadii koowaad waan dhameeyay continue hadaan dhaho wiishiga markaan ku guuleystay kalamadii how are you waa maanta bartay ku hadal luqadda Ingiriisiga adigoo kalsooni buuxda qaba ku hormari xirfadda luqadda Ingiriisiga shaqadaada iyo waxbarashadaada oo muuji awoodaada baro luqadda Ingiriisiga oo noqo xirfadlaha aad rabto inaad noqoto bal sawiro oo suurayso adigoo af Ingiriisi ku soo jeedinaya khudbad fikradaha ku cabiraya si kalsooni ku jirto oo hufan adiga oo xiriir la sameynaya bulshada afka ku hadla iyo kuwan ku hadalba hadaba jaamacadda Islamic Online waxa ay si gaar ah u ballaarisay barashada xirfadda luqadda Ingiriisiga qaab live online ah adigoo ka soo baranaya goobtaada goorta aad rabto kuna baranaya qiimo ku raadi galiya waxa aad hadda heli kartaa fasal cusub subax galab iyo habeen fasaladaas oo ka kooban 3 qaybood oo kala duwan individual class waa fasal ka kooban hal arday iyo hal macallin special classes waa fasal ka kooban ilaa 5 arday hal macallin iyo macallin yare iyo regular class oo ah fasal ka kooban 15 arday hal macallin ama sentence-ka how are you marka waa very fantastic appkan ku shubta linkidiisa idin soo diraya marka aad baa idin salaamay muuqaalkan ha ilaawina inaad noo sii sheegaysaan si dad badan uga faa'iideystaan application badan baan soo wadnaa waxyaabo badan oo ku saabsan Englishka technology-da business-ka aan soo wadnaa nagu soo biro marka follow subscribe wixii aad noo awoodi kartid noo saar. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.